iyadoo ciidii hore uusan jirin xanuunkan la mid ah hayeeshee isu socodka dunida ayaa hakad geliyay kadib markuu xanuunkan baahsan uu saameyn ku yeeshay suuqyada ganacsiga adduunka. haddaba bahda Bidhaan Media waxay la kulantay qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada Laascaanood kuwaas oo haatan ku jira mashquul baahsan iyadoo lagu jiro maalinkii u dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaanu ganacsatada aanu la kulanay weydiinay saameynta uu ku yeeshay coronavirus ka ganacsigooda iyadoo sidoo kalena waxyaabaha ay iibin jireen ay uga imaan jireen dalka dibadiisa. hagaag daawadayaal wali waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena uu diyaar garowga munaasabada ciida halka si toos uga daawanaysan daawadayaal waa Bidhaan Media. halkan hortaaganahay waa Carwa Labis Style oo kamid ah carwooyinka ugu weyn magaalada Laascaanood gudaha ayaan u gali doonaa waxaan wax ka wareysan doonaa bal u diyaar garowga iyo dhaqdhaqaaqa ciida mulkiilayaasha iyo dadka halkan ka Cabdishiid aad badan ma santiin bidaansha saaxib dhamaantiin runtii dawada rataan oo alxamdulillah ciidku si fiican buu socdaa waxaana ku jiraa gabagabadii bisha barakeysnayd Ramadaan biidnillaahi ta'aalana waa runtii wad ka dareemaysaa dhaqdhaqaaqa suuqa aad iyo aad bay runtii u kala socdaan hawlaha ganacsigu ka Carwa Labis Style ahaana runtii waxaan u dareemanaa ciidkan si xoogan alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa macaamiishii wax naga iibsatay iyo dhammaan bulshada gobolka Sool waxaan leenahay ciid mubaarak kulligiin runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah inta yar ciid inagu hadhana in Ilaahay caafimaad qab iyo farxad uu inagu gaarsiiyo biidnillaahi ta'aalana waxaan rajaynaynaa in uu noogu dhamaan doono si habsami leh maadaama adduunku xanuun badan ka jiraan ma saameynta ganacsiga xanuunkaasi ka والله runtii bidaansha waa jira saameyn uu ku yeelanaya wax kasto dunidaba COVID-19 saameyn xoogan buu ku yeeshay laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin marka aanu eegno xilligan runtii waxaan aaminsanahay inuusan saameyn togan oo saas waxaan u sheegayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee magaalada Laascaanood ku sugan ciid wanaagsan waa ciidii maciideen hadda waxaan ku suganahay carwada caalamiga ah shirkadii weyneed ee macawisaha shaqadooyinkayga baan haystaa dadkan gaarsiinaya si ay qof walba u helaan macawis wanaagsan oo berbera ah ganacsatada qaar oo ay noo sheegeen inay alaabta ay gadaan ay haatan qiimahooda kor u sii kacay maadaama suuq yaraan uu jiro dunida oo idil daawadayaal wali waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkii u diyaar garowga ciida oo aan goobaha kala duwan ee ganacsiga u diyaar garoobayaan dadka kala duwan ka iibsanayaan hadda waxaan soo galnay Carwa Style oo dib habeen badan lagu sameeyay mulkiilaha ama ownerka Carwa baan ka wareysan doonaa balse waxanka iyo bal saameynta uu xanuunkan dunida ku yeeshay sida dhaqdhaqaaqa ciidkan u jiro bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore maxamed saaxib waa ku salaamayaa niyo ciidkan waxaad moodaa inuu ciidii hore ka duwan yahay siyaabo badan buu uga duwan yahay kale horta anagu mar walba iibkayga waanu haynaa oo waxa keenay inaan iibkayga hayno waxaan sameeynay ribayd oo meheradaan ribayd gareynay dhar cusubna waanu keenay dhan yarana waanu keenay laga iibsanayaa laakiin cabashada iyo muxuu ahaayay culayska ciidii hore culayska hadda ciidan waxaad moodaa in faqri weyn u dhaxeeyo oo dadkii inuu soo wajahay dhaqaale la'aan ay jirto waad ka dareemaysaa oo maxaa yeelay sidii ciidii hore wax loo iibsan jiray oo iibku u socday ciidkan uma socdo boqolkii 75 iibku wuu yar yahay laakiin annagu waanu ka duwanahay oo waanu haynaa iib laakiin muxuu ahaayay waxaanu jeclayn wixii aanu hayno in dadka kale nala hayaan oo sidii anagu aanu wax u helino in walaaladeena nala helaan baanu jeclayn oo asmiir waa maasantay maadaama xanuunada adduunka saameeyeen carwooyinka qaar inta badan waxa lagu dhaliilaa inay aysan wax qiimo dhimis sameyn carwadiinu qiimo dhimis ma sameysay maadaama dhaqaale yaraan soo xanuunkaas sababay uu ka yimid may wallahi qiimo dhimis ma sameyn markaan run ku sheegna haddaan ku darnayba oo waxaan ku sheegnay waxaan ugu darnay meherada wada aragto $50,000 decoration aanu gelinay adduunka waxa ka jiray xanuun oo dhar wala la'aa dharka waxaan ka soo rarnay Turkiga waxa dhacay dhaqaaluhu lacagtu noogu imaan jiray lacag ka badan inuu noogu yimi waxa dhacay in cashuurtii nagu badatay waxa dhacay in muxuu ahaayay hawlo badan oo dhibaato ah xanuunka annaga lafteena saameeyay marka iska daa inaanu jabinay annagu dharka aanu hayno waa qaali laakiin waa dhar high quality leh boqolkii 75 dhalinyarada gobolka waxay yiraahdaan Samiir waxaad gadaa wax qaaliya been ma anu wax qaaliya aan gadaa laakiin wax qaaliya aan gadaa maxamed waxa aan hayo ee aad aragtid shay kasta waa Turki waa original laakiin hadda maxaan sameeyay si dhalinyaradii ay wax u fahmaan kii originalka ahana waan keenay kii China ahana waan keenay geesta kalena qaar ka mid ah ganacsatada carwooyinku waxay sheegeen in qiimaha ay
alaabta iibinayaan uu yahay mid aad iyo aad u jaban. markana waxaan soo booqanay carwo super oo kamid ah carwooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood. waxaan wax ka weydiin doonaa bal munaasabada u diyaargarowga ciida iyo xanuunka COVID-19 oo si weyn saameyn ugu yeeshay dunida iyo dalkaba. waxaan wax ka weydiin doonaa bal saameyntu ku yeeshay ciidkan iyo ciidadkii hore iyo ciidkan iyo sida uu raqaaqa suuqa. Siciid Cardoofe ownerka meesha ayaan ka wareysan doonaa bal waxyaabaha iska bedelay ciidkan iyo ciidkii hore iyo xanuunkan hadda yimi. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore Allah subhanahu wa ta'ala ma hadis kale marka labaad waxaan u mahadcelinayaa Bidhaan Media maxamed Bidhaan Shay bahdiisa runtii markasta ka shaqeeya danaha dadka iyo siiba shacabka reer Laascaanood aad iyo aad soo dhaweynayna runtii waxa lagu jiraa u diyaargarowgii Ciidul Fitriga oo Ramadaantiba gabagaba caawana ma inay soo doontahay insha Allah maalin baa inoo hadhay Allah subhanahu wa ta'ala inagu simo dadku way ciidayaan oo wala iibsanaya dharka iyo runtii qof walba wixii qanciya laakiin kullee xanuunaa jiro oo coronavirus baa jiro oo sanadkii hore sanadka isku mid ma ah laakiin safaradu way badan yihiin oo iminka way yimaadaan horena way u yimaadeen laakiin dadka waxaan u sameeynaa runtii discount wanaagsan oo aan hore ugu sameyn jirin maadaama xanuuna jiraan dadkuna bila amal u badan yihiin oo qaybo badan oo sida waxbarashada kale ay xidhan yihiin marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaan isku daynaa oo kale tusaale ahaan saddexdii qof oo kale wax naga iibsada hal qof inaanu dharkiisa gift ka dhigno ama discount marka bidhaanshe insha Allah sidaas loo ciidayaa meheraduna way shaqaynayaan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo xanuunadan iyo aafooyinkan markana carwo super waxa isugu soo galay maxaa Cismaan Cabdinuur oo kamid ah bahda warbaahinta oo ciidaya bal waxaan ka wareysan doonaa bal diyaargarowga munaasabada ciida iyo xanuunka COVID-19 saameynta uu ku leeyahay munaasabadan ciid doorkan ciidka amaasantiin Bidhaan Media waxaan kala mahadnaqayaa ganacsatada magaalada Laascaanood runtii xanuunka COVID-19 iyo ciida saameynta ku yeeshay dhanka ganacsiga marka la eego carwooyinku waxay ku xidhnaayeen safaro dibadda ah xilliyada ciidda u imaan jiray marka maadaama socodka adduunka oo hakad uu ku jiro waxaad moodaa in ciidan ay ka duwan tahay ciidihii kale inkastoo ganacsatada qaarkood ay ka faa'iideysanayaanba isu socod la'aanta dunida ka jirta oo intii yareed ay hayeen qaarkood ay qaali garaynayaan laakiin carwadan oo kamid ah carwooyinkan ku xidhanahay carwo super la yiraahdo waxay kamid tahay carwooyinka ciidii hore qiimihii ay siinayeen qiimo ka hooseeya aad moodid hadda inay siinayaan oo dabcan dad badan oo aan asxaabnahay oo aan mariyaha la dooqayay iyana ila dooqayay mariyaha aanu ku soo aragnay carwooyinka kale iyo kuwa ay tani hayaan isku mid ahaayeen haddana qiimaha oo faqri weyn u dhaxeeyay carwooyinka qaarkood qofka markuu isku jooggiisa kale nin weyn oo garanaysa macawiisa cimaamadiisa iyo uu ku tuurto waxa laga qaaday 120 ilaa 130 halkan aanu kaga helinay wax gaadhaya $90 ilaa 80 inta u dhaxaysa taasna waxay cadeynaysaa faqriga u dhaxeeya carwooyinka laftigooda iyo ganacsatada marka xanuunka COVID-19 adduunka oo dhan buu saameyn ku yeeshay Laascaanoodna saameyn kale oo taa adduunka ka duwan uu ku leeyahay ma jirto ma filaya marka laga yimaado safaradii dibadda ka imaan jiray oo dhalinyarada iyo yowga ahayd labiskoodii isagu luuq galay laakiin odayaashu waa weynaada waa ciidaya marka bahda Bidhaan Media sida ugu adeegaysan bulshada adiga iyo kamermaankaaga waa idin mahadnaqaya aan ugu soo booqateen caawa Bidhaan Media waa Carwo Star Mall oo ku taala gobolka Laascaanood centerka magaalada agabka bixisa waxa kamid ah dharkii dhalinyarada waayeelka carruurta dumarka iyo udugii saad ka aragtaan meherada way camirtay ma sha Allah bulshaduna way ka ciidaysaa kaastaanada naystaan waxaan nahay meher daan gaadhay ilaa 10 sano magaalada ka jirta runtii bulshaduna aad ayay nagu riyaad qiimaha macquulka ah dadka wax kaga iibino saad ka warqabtaan sanadkan xilli diyaar garoobina Ciidul Fitrigi inagoo gabagaba inoo tahay bishii barkaysan Ramadaan runtii waxaad moodaa suuqu sanadihii hore inuu ka duwan yahay oo saameyn ku yeeshay COVID-19 maadaama uu xidhay isocodkii gaadiidka iyo alaabtii la soo dhoofinayay iyo sidoo kale qurbojoogta badan ee dalka ima jirtay oo iyaguna xilliga samartaymka ciidi jiray dalkan wax badan soo gelin jiray sidoo kale biilasha farax badan la soo diri jiray xaqul ciidka oo yaraaday laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan moodaa bulshada gobolka Sool ku dhaqan inay wali keydkoodii maalayaan oo si fiican u ciidayaan annaguna qiimo jaban ayaan ku soo dhaweynay maadaama dadku ay nooci badan yihiin oo macallimiintii iyo dhammaan goobaha waxbarashada ay xidhan yihiin waxaanu qiimo mis boqolkiiba 20 ama 30 aan sameynay dhammaan dadkii ku taxalluqaya carwada ee noo ah customerka alxamdulillah rabbil caalamiin si wanaagsan baa loo ciidaya Bidhaan Media waa salaamaya wali waxaan barta kaga jirnaa barnaamijkeena diyaargarowga ciidda oo si live ah Bidhaan Media uga duubay waxa soo galnay soo baabad soo barbar iyo dadka jiraan casriga waxaan caawinaa amarka tijara oo ka warbixin doona saameynta xanuunka iyo diyaargarowga xabada soo dhawaa in shaqaalaha ay
نسول الرحيم waan uga mahadcelinaa tiimka Bidhaan Media suuqa nagu soo booqday wallahi xanuunku kala saameyn fara badan buu yeeshay maadaama dadka wadanka jooga ay ku tiirsanaayeen dadka dibadda jooga oo lacagaha u soo diri jireen ciida dad fara badanna aysan goobihii waaweynaa aysan ku ciideen oo guryahooga ay ku ciidayaan aad badan buu ku yeeshay waayo suuqii waxa laga dareemayaa in jaamkii badnaayo laga ilaalinayo oo dadka la dhahay ay soo dhawaanina kala fogaada meelihii la isugu imaan jiray oo kale aad bay u xidhan yihiin garoomadii kubadda cagta oo kale baa xidhan meheradihii la isugu imaan jiray baa aad qaar badan baa la xidhay marka insha Allah waxaan rajeynayaa noo furmaan meeraduhu ciidka sidoo kale waxaanu la kulanay qaar ka mid ah dadka iyagu markaasi u soo dukaamaysi tagay carwooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood kuwaas oo aan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay COVID-19 bismillaahir rahmaanir rahiim teedii wada aragtaano anaga iideyna carwadii waxaan joognaa Samiir carwadii magaalada dhalinyarada ka iidi jirtay ma aha suuqii caadiga ah carwooyinkii ugu waaweyn magaalada dharkii ugu wacnaa dhalinyarada haysa waxaan leenahay dhalinyarada intaan wali wax iibsanna soo gaadhay horta carwada oo dharka ka iibsada wixii islaamana waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr aad baan ugu faraxsanahay iidna oo iid aad loo soo dhaweynayo inkastoo waliba dadkii hadda ay fahmeen iyadoo xanuunkii uu jiro COVID-19 dadku ay banaanka isku kala sugayeen inta ka hor iibsanayo oo kii kale ka soo baxayo buuqii la yareenayo sawaxankii iyadoo loo hoggaansamay amaradii dhakhaatiirta caafimaadka waxaan u leenahay ciid mubaarak ilaahay caafimaad iyo bashbash barwaaqo ugu gaarsiiyo hal qayb qaadanaya sida salaada xanuun jiraan oo lacag yar yihiin inta badan dadku waxay lahaayeen carruurta ama dhalinyarada la ciisinaya dadka waaweyn waa iska nasanayeen ciidkan labadaba waa anagu laftarkaygu anagu dadkii waaweynaa ku jirna baana haddana qarashkii iyo iyadoo la iska ogaaya xaaladaha dalka ka jira haddana carooyinka inamada haystaan ay kula saayirayaan dadkina iidaan u leenahay dhinaca kale ciidamada ammaanka ayaa iyagu sugaya amniga guud ee suuqyada waaweyn ee magaalada Laascaanood kuwaasoo 10kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan lagu arkayay iyagoo hawlgalo amniga lagu xoojinayo ka wada magaalada Laascaanood iyagoo ay kala qayb galayeen bisha barakeysan sugidda amniga ciidamada dadamiska oo ay heegan ugu jiraan hadiiba uu dab ka kaco qaar ka mid ah suuqyada waaweyn sida ay gurmad degdeg ugu fidin lahaayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada booliska ayaa si weyn uga hawlgalaya waxaad arkaysaan tan iyo intii xanuunadan soo cusboonaadeen dhaqdhaqaaqa ciidkuna uu soo galay in ciidamada boolisku ay heegan gaar ah ugu jiraan sida ay xanuunkaasi ay saameyn gaar ah ugu yeelan lahayn bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood taliyihii ayaan dhinacayga taagan waxa uu ka warbixin doonaa bal xanuunka iyo sida ay uga hortageen bulshada Laascaanood bal warbixin guud buu naga siin doonaa hagaag xanuunka haddaan kaas iyo jawaab xanuunkaas kantarooladu waa noo xidhan yihiin kowdii maanta la xidhay in dhaweytana ciidanka boolisku wuxuu heegan ugu jiray siduu xanuunada uga hortago iminka wax soo gelaya ma jiraan magaalada iyadoo la iidaayo oo si fiican dadku isu dhex marayo wax xad kale ka soo gelaya ma jiraan kantarooladu waa noo xidhan yihiin magaalada dhexdeeda inta joogta ayaa ku iidi doonta maqribka marka la aadimo ciidanka boolisku wuxuu xidhaa goobaha lagu ganacsado dadku ganacsado iyadoo la ilaalinayo dadka hantidiisa waxaanu leenahay ciideeda in ilaahay nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash wabilaahu tawfiiq saameynta xanuunka iyo diyaargarowga sanadkan saameyn intee leeg Laascaanood iyo dunida ku yeeshay bismillaahir rahmaanir rahiim markaan halka ku noqdeen wariye Laascaanood gobolka Sool aad iyo aad boqolkiiba boqol ilaahay waa naga qabtay xanuunka isaga ah maanaan arag ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ilaaha naga qabtay hadda wuxuu noo soo joogaa baa leeyahay Burcaya Garowe labada magaalo noo soo joogaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay yara ka dulqaado anana uusan naga gaarsiin 10kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan suuqyada waaweyn ee magaalada Laascaanood waxaa laga dareemayay mashquul aad fara badan walow ganacsatadu ay sheegtay in adeegyadii ay ka heli jireen daafaha caalamka ay soo gaadheen balse ganacsigooda uu socday sidii loogu talagalay qiimaha iyo qadarinta intaas ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ah ee ka daawanayseen Bidhaan Media waxa la socodsiinaya anigoo Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidhaanshe waxa dhanka kamarada iyo muuqaal duubiska la socodsiinaya idii duubayay Axmed Nadaara intaan ku kulmi doono barnaamij kala mid ah waxaan kaga tageynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala